أنا يقد دعية لبعض السنة أنا هم معارضة إنه لا يقد حاكم يقد دعية آمين آمين يا شركة دان أنا وساوي شيء حويها يقول برجع دويتان برناي يترتن كي يلا هالشيء سيدا وشيء عد رساق بنا نقولنا أم كلا دورنا أوحي أم بحين إنه تيدو ذا يكرتيدو ذا يدعى يوم تعقيمه in fact markaad aragtay marka hay'adahayna private ka ah amba haato mid wax daabacda amba haato mid wax soo dejisa amba hodheer haatee waan ku farxaa dhalinyarta ka shaqaynaysa siday u qiimo badan yihiin si u karti u badan yihiin waxaa la sheegay in muqdisho oo kale ay hay'aduhu prefer gareeyaan ardaydeena jaamacada ka baxa xagga kartida waxaana hubaa maadaama uu dalkeenu ilaa 157 uu dhalinyaro yahay in subxaana wa tacaala ilaahay hadduu inoogu sii waaro goon istaageena inaynu dalkan uu leeyahay rajo weyn leeyahay oo dhalinyarta tayada leh ee qiimaha leh ee hay'adaha ka shaqeysa kuwaas iyaguna ay soo geli doonaan lamidii public shaqooyinka xukuumadda ay soo geli doonaan maanta dhibaatada weyn ayna haysataa dalkeena markaad eegtid xagga dhinac kastaba amba ictiraaf ha noqoto amba horumar ha noqoto waxa weeye waa aqoon darro ayna haysataa raggayga imanka dee sii socda da'dii nagu xigtay ma jirto waa da'daa imanka muqdisho wadaa waxaad ka fahmaysaa inay da'daasi maqan tahay dee imanka markaa arrimaha Soomaaliya laga hadlayo weli ma aragsid professor reer Soomaaliland oo wareysanayo labada ilmaha samatar moojado iyo rag waaweyn moojane waxa aqoonyahan wax ka faaloonaya international organization oo iska shaqeysa mid reer Soomaaliland inta baynaga madax ka ahaan jirnay markaan anagu da'da aan ahayn kunta jirkii waxa maanta aynu dadkeenu aynu wax aynu kari karno dadkeenu biyo siino wana kari karnaa waxaan arkay conferential report UN to qortay oo Soomaaliland laga qoray waxaa leeyahay Soomaaliland ma leh awood ay wax ku dalban karto Soomaaliland ma leh awood project la siiyay ay ku dhameystiri karto absolutely وانا اركز انا انت مشروع inaga fashilmay oo aqoon darro iyo maamul xumo waa walaalo inaga burburimay waxayna siisay imaaraadku ilaa $50 milyan oo biyo ay ku sameeyeen xubo weyne way naga fashilantay kuwii marka laga soo waday geedeebay ورد 60 مليون باوند فيها إني تاعي ولي وقت هنا وفان وله فريق ما قرنا وحاصل وحوي وتيحما هو كان حمو أيوي أقندر عذر كويني عدو كويني أقندر ما شفته ما قال هذه أنا أفرح سنة هاي inay dhalinyaradan kuwii sagal ka shaqeeyay waan arkay maalintii dhaweyto idinka waa ida arkay aad iyo aad baan u farxaa markaan arko amba jaamacadaha dhalinyarada ka soo baxaysa amba hay'adaha private ka idina weyn bay gashaa idina weyn
أيها كشة إلى وحنا قبل سبحانه وتعالى إنه أبارتنا قاعدوا إلى هاي سبحانه ومدينا أو شر أيسيو لما كن يكودي وحنو أنا محمد حاج مراعي له نحرسه كوجو ليسنا إلى مدرك كسرنا سيستم كي قبيل كها الشربيلات والله تكلم باريس بامسامين وحنو قبل قلنا مركب بحسنني إنه دلكو قبائلكم institutionalize garoobaan waxaan ka xumahay 20 sano ka bacdi maanta inaynu institutionalize aanay korin qabiilkii ka xoog weeyay maanta institutionalize